bismillahi raxmaan raxiim casharkan waxaan ku dhex qaadanaynaa sida loo kiraysto taxi amaba qof taksiila ah oo ka dhex shaqeeya dunida ingiriiska looga hadlo sidii uu la macmili lahaa qof rikaab ah oo isagana af English ku hadlayo. labada dhinacba casharka wuu anfacayaa. casharka marka waxaa la yidhahdaa hiring a taxi, taxi kiraysasho ama kiraysiga taxi. hiring waa kiraysasho, a taxi la kiraysto. intaas hore u gelin ama aan bilaabin macnaha casharkan waxaan rabaa inaan ku wargeliyo in Telegram aan ku bixiyo casharo ardayga uu lacag iska bixinayo oo taxana ah oo bilow ilaa dhamaad uu baranayo English marka israacsan. marka qofku u baahan waxaan nagala soo xiriiro contactida aan leenahay. casharkii kiraysiga taxiga oo aan idin macneeyo waa kan ee la socda. hiring kiraysasho waa hiring a taxi, kiraysashada taxiga. hiring a taxi waxaa kaloo la dhihi karaa taking a taxi, taxi oo la qaato. taking a taxi waxaa dhihi kartaa kasoo qaad markaad saaxiibada la joogto. waxaa dhihi kartaa let's hire a taxi, taxi aan kiraysano. let's hire noo ogolaada inaan kiraysano a taxi marka waxaa weye taxi aan kiraysano markaa saaxiibada usoo jeedinayso ayaa la qaataa. let's hire a taxi aan kiraysano. simply waxaa dhihi kartaa oo kale let's take a taxi aan qaadano. let's take a taxi aan qaadano. passenger waa rakaab. qofka rakaabka markuu taxi u yeerinayo wuxuu dhahayaa taxi uu leeyahay. taxi driver waa darawalka taxiga. muxuu leeyahay isaguna yes ha madam marwoy get in gudaha soo gal. yes ha madam marwoy get in gudaha soo gal. tax driver darawalka taxiga wuxuu leeyahay where are you going, xagee u socotaa. where are you going, xagee u socotaa. where are you going, xagee u socotaa. passenger meelo badan uu sheegi karaa laakiin hadda sheekadan passengerka rakaabku wuxuu u socdaa airportka, garoonka diyaaradaha. I am going, waxaan aadayaa to the airport, garoonka diyaaradahan aadayaa. I am going, waxaan u socdaa to the airport, garoonka diyaaradaha. taxi driver darawalka taxiga wuxuu leeyahay marka shall I put your bag in the trunk, shall I put makuu dhigaa your bag boorsadaada oo makuu geliyaa in the trunk qayb dambe ee baabuurka ee alaabaha la gashto. marka ereygan muhiim uu idin yahay. taksiilaha uu dhahaya waa inuu bartaa makuu geliyaa boorsadaada. shall I put your bag, shall I put makuu geliyaa oo makuu dhex dhigaa your bag boorsadaada in the trunk qayb dambe ee baabuurka qaybtiisa dambe ee badanaa alaabooyinka la gashto ayaa la dhahaa trunk. shall I put your bag boorsadaada makuu dhex dhigaa in gudaha the trunk qayb dambe ee baabuurka ee alaabaha la gashto. shall I put your bag makuu dhex dhigaa, shall I put your bag boorsadaada makuu dhex dhigaa in the trunk gudaha marka qayb dambe. ereyga trunk luqada qayb macnayaal kalena waa ku leeyahay laakiin marka taxiga la joogo waa qayb dambe ee maaragtay baabuurka. sidoo kale laakiin markii trunk waxaa weeye American English waaye, Englishka Mareykanka qayb dambe trunk ay yaqaanaan. laakiin markaad British la hadlayso ama London aad joogto ama Europe meel kamid aad joogto badanaa ama aad joogtaba UK waxaad maqli doontaa ereyga put ay isticmaalayaan. shall I put your bag boorsadaada makuu dhex dhigaa in the put qayb dambe ee baabuurka. marka labada erey inaad kala bartaan. haddaa baabuur wado waqooyiga America ku wado waxaad qaadanaysaa trunk. shall I put your bag boorsadaada makuu dhex dhigaa baa leedahay haddaa joogto waqooyiga America weeye. shall I put your bag boorsadaada makuu dhex dhigaa in the trunk qayb dambe ee baabuurka. laakiin markaad joogto Europe iyo badanaa qaybo badan oo carabta ah iyo Aasiya badankeed iyo waliba UK oo meesha luqada ay ka timid ah UK oo qayb balaaran oo luqada Ingiriiska looga hadlo ayadana waxaan leedahay shall I put your bag boorsadaada makuu dhex dhigaa in the put qayb dambe. marka inaad kala bartaan trunk waqooyiga America ka yahay qayb dambe, put British English waaye oo Britishka marka isticmaala ereyga put oo trunk ma isticmaalaan. labadaas erey kala barta marka. passenger gabadhii rakaabkeed waxay leedahay I have one bag, ilaa wuxuu yiri makuu dhex dhigaa mogtahay. I have one bag, hal boorso ayaan wataa and two suitcases iyo laba shandadood oo ku dharka ah. I will also gaabi waataas. I will also gaabi waaye
I'll keep waa xafidinayaa bay tiri anaa haysanaya this one midani with me anaa haysanaya I will keep this one anaa xafidinaya this one oo I will keep this one midda anaa xafidinayo oo with me macigaygii ahaanaysaayo aniga ila soconaysaa middan oo agteedii taalaysaa I will keep waan xafidinayaa this one midani with me anaa xafidinayo oo agteeda yoolaysaa waay markaad shayga kaliga inaad sii haysta rabto waxaa leedahay I'll keep waan xafidin doonaa I will keep waan sii xafidinayaa this one midani with me aniga xafidinaya but laakiin waxaa dhigtaa the suitcases shandadaha dhexdhig in the trunk qayb dambe ee baabuurka marka hal mar bal aan wada daawano iyadoo iswadata Taxi. Yes, madam, get in. Where are you going? I am going to the airport. Shall I put your bag in the trunk? I have one bag and 2 suitcases. I'll keep this one with me. Put the suitcases in the trunk. waayahay waa fahanteen habka aad taxi u karaysan karto ama haddii adigana markaasi aad taxi leh aad ula camili karto qof markaasi ingiriishka ku hadla marka waa casr muhiima ku celceliya sad u barataan ereyada noocaana xalqadayda maanta intaan baan ku ekeenayaa ilaa aan gaar doono casharka xiga waxaan leeyahay nala jaanqaada casharo badan oo aad uga faa'iidaysan doontaan ayaa idin soo wadaa hana u war la'aanina koorsooyinka aan ku bixiyo Telegram ee muhiimka idin ah ee ardayga lacag yar iska bixinayo uu helaya casharo israacsan bilow ilaa dhamaad aad baa idin jeclahay luqadda la idin fuudeeyo wabilaahi tawfiiq